shirka dooda qaran ee joojinta iyo la dagaalanka eegashada ama baqiishka imtixaanaadka shahaadiga ah ayaa waxa soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada iyo waliba tacliinta sare waxaana ka soo qayb galay shirkaasi xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland agaasimayaasha guud iyo waliba qaar ka tirsan agaasimada waaxyeedyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare aqoon-yahanka iyo professorada ugu horreyn waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay afayeenka wasaaradda waxbarashada Cabdillaahi Ibraahin Xaaji Xasan oo uga mahadnaqay dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay sidoo kalena waxa halkaasi hadal ka soo jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Cabdillaahi Jaamac iyo gudoomiyaha imtixaanaadka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax shirkan ujeedadiisu waxay ahayd hadaan toos u abaaro in aanu isugu yeedhno dadka mutacalimiinta ama aqoon-yahanka si aanu ugala tashano sidii qishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga looga wada tashan lahaa marka anagu waxaan ku talagalay inaanu soo bandhigno wixii ilaa imika aanu ka doodnay wixii ka soo baxay ma garanaysaa shirarkayagii iyo doodahayagii kadibna wixii aad ku daraysaan idinku aad ku dartaan ma wada sheegi karo laakiin waxyaabaha ka qosay waxa ka mid ah dhammaan moobiladu waa ka mamnuuc in la yimaado goobaha imtixaanka anoo ku hadlaya afka wasaaradda waxa weeyaan waxaan u sheegaynaa dhammaan ardayda iyo waalidkood waa mamnuuc lamana ogola in la yimaado goobaha imtixaanada shahaadiga lagu qaadayo moobilada cidii la timaadana waxay iswaajahayaan sharci ay iswaajahayaan farxad gaar ah intii tahay way muddo badan baan keligay ka qayliyay oo wixii ka dambeeyay 2009 laga soo bilaabay ilaa 2010 waxa uu soo tareeyay in badan baan runtii arinta ka hadlaynay iyagoo danaynaya imtixaanaadka inagu laakiin danyar baynu iska ahayn dawladdu marka tarooso ma laho waa private baare muddo badan oo imika sanad waa qaydinay mushkiladii markay naga soo qoratay wasaaradda aad iyo aad ugu hambalyeynaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud gabagabadii munaasabadaasina waxaa soo gunaanaday wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdillaahi Ibraahin Habane Cabdillaahi Dheere arinta ku saabsan maanta ay wasaaraddu soo bandhigtay ruuxaantii xafiiska imtixaanaadka iyo agaasimaha guud baa ka soo shaqeeyay mowduuc loo baahan yahay in laga wada hadlo oo wixii wasaaraddu ay tala moodayna in soo hordhigto wixii aad ku darasaan iyo wixii aad ka dhimasaanna la eego ayay wasaaradda ula muuqatay waana arrin muhiima weeyaan waxbarashadu waa asaaska nolosha haddii waxbarashadu naga qalloocantana bulshadoo dhan way qalloocsanaysaa xaqi weeyaan arday ku soo baxay qish ku soo baxay oo wasaab loogu shaqeeyey oo jaamacaddii galay oo jaamacaddiina qishay oo dibadna halkan u soo baxay marka haday jeer aan ka hadlaya arrintaas dadka in badan baa tidhaahdaa waad ku yar talax tagtaa laakiin waxaan sheegayaa 60 kun oo arday baa jaamacadaha inooga soo baxay ilaa hadda 60 kuna inan haddii ay aqoontu waxay soo bartay dhab tahay inamada Kenyaati xafiisyada inooga joogeen Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.